qisada ugu dambaysa ee nabiga deeqsinimadiisa sallallahu alayhi wasallam aan ku tilmaamayno waa qiso cajiib badan oo qisadan yaani markaan akhriyaba anoo kaliya qoslaa waa qiso la yaab leh sahih muslim bay ku taala qisadu miqdaad ibn aswad baa yaa warinaya wuxuu leeyahay miqdaad aniga iyo laba saxaabi aniga laba saaxiib oo leenahay ayaa soo qaabilnay buuri marka waa rafaadnay gaajaan hayso waa rafaadsannahay maqalkanagi iyo aragganagi baa tagay waa daciifay waxba quman ma aragno maqalkanagu indha dhagahna wax quman ma maqlaan gaajada iyo rafaadkii dhibkana haysta dartii nabigaan u nimid sallam markaanu meeshii aan nimid saxaabadii u nimid فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان باللوني إن أندتك أبندقنا يعني إسو بندقنا وباهذا النذي الرفات كان هيستي وحي يعني وحوي فليس أحد منا يقبلنا عندنا قابل شبه وينيب إلا الصحابة يغلطوا إنه وحيستبوا كويري عندنا سودة ويسو نقادو وحنا سيسو وان وينيب مركز النبي قوي النبي صلى الله عليه وسلم النبي وانا كحي صدح ذا النبي وانا كحي كوريه سنة كحي gurigii haddaan tagnay saddex neef oo ariga ku xidhan saddexdii neef ariga ahaa ayaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ihtalibu hada labana baynana yaani saddexda neef ariga caana inooga soo lisa kuwa baynu wadaagaynaa fakunna nahtalibu fayashrabu kullu insani minna nasiibahu waan soo maalnaa waan soo lisnaa kadibna nin walba qaybtiisu cabaa nabigu marbuu maqan yahay markaan soo lisno qaybtanada cabno qaybtii nabiga aan ugu talagalay waa u dhigi jirnay markaasuu xilli dambe habeenkii imaanaya asaga oo socda dadkiina seexdeen fayaji'u min al-layl habeennimadii wuu imaanaya fayusallimu tasliiman la yuqidu naa'iman wa yusmi'u al-yaqdan markuu guri la hurdo soo galo waa salaami jiray salaan cidda soo jeedana ay maqlayso ruux hurdana aan kicinayno hurdada ka kicinayno buu ku salaamaya assalaamu alaykum hadal yaraha يعني دحدحاده محو أهاي كان سوى شيء ومقليه كهردنا عن كعنين كدي من النبي صلى الله عليه وسلم مساجكو إيمان شري وتكن شري مركو صلاة صوت كذا كدي أيو إيمان شري مركزو جورجا مركزو عانيه أنو دقني عبي شري شرابكي عمت عبيه عبي شري هبين هذا كم يدبله مقداد مركز عانيه أو يالا أنتي نبي أن قربنا أو دقني أو يالا أيها الشيطان إيه مدبور هبين طبعا يعني واحد يقول شيكي قلبي يسوء شيكي أنا قلنا أنت ديوان عبي بوري مركز الشيطان كي يقول يبوري ور محمد أنصار والرمدينة أيو قريه هذا آذا يا مركزي سود وين يان ودق سين يان حاجة دي سي دنتي سنة هالكاسو كهلا يا محو كبضن وقبها هي بمعنى وحوي guryaha kale ansaareed iyo saxaabadiisu ka soo dhargaya wax ka helayay intan yarta ee caanaha kabadeed u reebteen muxuu uga baahaye muxuu nabigu ku falaya sallallahu alayhi wasallam shaydaan baa iigu sheekay buu sidaas warkii shaydaanku ii sheegay baan qaatay buu yiri faataytuha fasharibtuha intii yareed ee nabiga aru dhignay ayaan cabay buu waa ka fuuqsaday waa ka saaray falamma an waghalat fi batni intii yarayd markay calooshaydi gashay buu oo ay calooshii aan ku hubsaday oo aan ogaaday buu yiri annahu laysa ilayha sabiil ana calool galay lagama soo saari kare inay tageen oo saa ku tageen markaan ogaaday ayuu shaydaankii qoomamay walbahaar hadana ugu tuuray buu nadamani shaytaan walbahaar iyo walwal iyo murug baan la joogay wuxuu igu yiri buu hadana shaydaankii cabsiyay waay ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد ورهبار قبي ورمحات سميس ما وحوغاقي نبي يقول هذا عبتي فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك هو إيمان وحوغاقي مركو وينا وكو هباري وهذا هلاك سمي ويكون رمان نفتا إسوك يتمد وحوغاقي عانيه عبي علوشي كوسو علين كرو الشيطان والبهاري قليي أساقي عبسيي ee waswaasiyay hadana wuxuu leeyahay nabigi waa iimaano waxogaagii markuu waayana uu ku habaari doona maanta halaaga waa ku dhamaatay ya adduunyadii baa igu xidhiintay rafaaday fadahaba adduunyaaka wa adduunkaagii aakhirada maanta ay u dhamaatay adduuniya aakhirada maanta ay ku dhamaatay xageed geli doonta wa alayya shamlatun
mara yaroo gaaban baan qabaa buu yidhi markaan yani lugaha saaro oon qaar dambaha saaro madaxaygaa soo baxaya buu yidhi qaar hore haddaan saarana lugahaygaa bannaanay mara yaroo aan jidhkayga ku wada fillayn ayaan qabaa buu yidhi habeenkii oo dhan galgalo hurdo isga tagtay seexan waayey murug walbahaar waan gubtay labadaydii kale saaxiib iyagu waa iska seexdeen ileen iyagu dakana ma qabaano cidna wax kama ina cabine yani hurdadooday dheeraysteen anigi wuxuu seexan waay oo rafaad mar dambe ayaa nabigi sallallahu alayhi wasallam anoo soo jeedo galgalanayo hurdo waayey oo ilaa buu caawan baa lagu habaari doonaa nabigu waa salaamo yiri kama kaana yusalli markuu soo galay salaamu alaykum sidii caadiga u salaami jiray kadibna masaajidku galay uu soo tukaday waa yimid fa ataa sharabahu wuxuu isiri meeshii uu caanuhu u yaaleen ayuu tagay oo cabbu isiri fakashafa anhu markaasuu weelkii dabool ka qaaday falam yajid fihi shay waxba kuma jiraaba waa la cabay ila ninkii baa ka fuuqsaday miqdaad hay farafaca ra'sahu ila as-samaa markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ayuu kor fiiri cirku fiiri madaxu kor u qaaday cirku fiiri markaasaa waxaa dhibi nabiga oo kor fiirinaya markaan arkay waxaa dhibi al'aana yad'u alayka fadalik walla hadda umbu ku habaari doona way ku dhamaan doonta soo nabigu weelkii intuu fayday wax ma waayin oo gacmaha ma taagayo oo muxuu ahay madaxa kor ma fiirinayo maanta umbu ku habaari way ku dhamaan baan isir wuri nabigu sallallahu alayhi wasallam taban sidii buu ku ducaystay markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من أسقاني إله عنتي عدي عنتسي سعنتسي وعدي ورابي إله ورابي النبي صلى الله عليه وسلم ودعيس ماشو مقداد كبقي أذوك وهباري دونا النبي يسقون بعد دعيس إله عنتسي وعدي ورابي سيسي وعدي عنتسي وعدي ورابي سعبتان سي النبي قواد دعيس صلى الله عليه وسلم طيب موركتي بها كبحضي نكي مقدادها markaas wuxuu isiri walbahaarkii waa ka dhacayo inaan la habaarin waa soo baxdo habaarkii dhinac kale ducu noqday hadda maadaama nabigi leeyahay ilaahu cidii cunto isiisa cunto si wuxuu rabaa inuu ducadan ka faa'iideysto oo nabiga cunto u raadiyo oo uu ducadan helo nabigu ku duceeyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri markaasaan orday buu yiri maraan qaatay maradii yareydeen muxaqabay baan isku marmaray waa orday mindi baan qaatay mindidii baan la orday riyihii yarka ahay saddexda ayaan xaggooda u orday waxaan isii birteeba ugu hili badan oo ugu cayilan midii muxuu ahay waan soo gowracay inaan gowracaan damcay markaas waxaan arkay inay muxuu ahay caana leedahay tu kalaan isii gowrac iyadana sidoo kale weel baan diyaan raadiyay buuri weelashii kamida weelkii baan qaado markaasaan ku soo lisay buuri caani baan ku soo lisay markaasa waxaan ka helay buuri caano weelkii markaan ku lisay isagoo dhanba xumbo weelkii xumba ka kormartay nabigaan u keenay buu sallallahu alayhi wasallam markaas waxa yiri buu muxuu ahay asharibtum sharabakum al-layla rasuulkaan oo nabiga sallallahu alayhi wasallam markaan nabiga caani u keenay ayuu rasuulku igu yiri xalay caanihiini ma cabteen idinku xalay markaas waxaan yiri ha rasuulka ilaahay adigu cab ishrab uu cabay markaas uu cabay markuu cabay buu ii dhiibay wuu isiiyay markaasaan xidhi rasuulka ilaahay cab waa cabay markaasuu ii dhiibay nabigu sallallahu alayhi wasallam yaani wax weeyaan markaan gartay nabigu sallallahu alayhi wasallam in uu caanihii ka dhargay oo cokanaaday oo gaajadii ka baxday dacwadiisiina iyo baryadiisiina aan helay baryadii ahayd ilaahu cidii waraabisa waraabi oo cidii yaani wax weey cunto isii ilaan isaga cuntadii cabitaankii keeno nabigii waraabiyay oo caana ka dharjiyay ducadiina aan helay buu nabigu ku duceeyay ayaan qoslay buu yiri hatta ulqiitu ila al-ardi qosl baan la dhacay buu ila aan dhulka ku dhacay baan qoslay buu markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ihda sawaatika ya miqdaado kulli xumaanyaalkaagi mid kamida uu weeye maxaad samaysay waxaad ku qoslaysaa kulli waxbaad ku kacday maxay waxaas markaas ayuu rasuulka ilaahay sidaa saasa wuxuu dhaceen caanihii uu cabay shaydaan wuxuu ugu sheekeeyay kadib murugta ku dhacday galgalashadii habeenku galgalanayay markuu gacmaha uu kor u qaaday nabigu yiri wallahi hadda uu ku habaari doona qisadii buu uga sheekay nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam ma hadhihi illa rahmatun min Allah yaani waxa weey waa uu naxariis ilaahay buu yiri ilaahay caanahan uu riyahan inaga siiyay
وأن حريص إله أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها محاد يقول شيء ويدي لبدا إن صاحبنا وانكعن لهين مركاسي إن لعب لهين بالنبي صلى الله عليه وسلم مركاسا وحيري والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس رسولك إلهي بان ku dhaartay u aabayeeli maayo mar hadaad aduguna ii dheregtood caanihi cabti anuguna aan cabay cidii kale ka qadawayeelkeed buu muslim baa soo saaray bukhaarina adab mufradku ku wariyay qisadaasi cajabta badan waxay tilmaamaysaa nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu alayhi iyo deeqsinimadiisii iyo waliba siduu naftiisa uga bixinayo dadka walaalihii ugu doorayay ayay nabiga sallallahu alayhi wasallam tilmaamaysaa waana qisadii ugu dambeysay ee xalaqada iyada ah aynu muxuu ahay ku soo qaadanay nabi maxamed salawaatu rabbi wasallam iyo deeqsinimadiisa wax iyadana laga sheekayn karo ama la cabiri karo ma aha rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waa sidaasoo nin fog iyo nin dhow nin sokeeya iyo nin shishe gaal iyo muslimba deeqda nabigu waa wada gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi bal ka waran nin mujtamaca noocaas saa u baahan ku dhex nool oo haddana aan weligii laga haynin maya laga haynin wax la weydiistay waa wax cajiiba wax la yaab la weeye laakiin waxay tilmaamaysaa يعني الشخصيات آد وسريسة إيه النف آد وسريسة إيه طبيعات آد وسريسة إيه أوهباء وإلهي النبي محمد كوك الله دايسته صلوات ربي والسلام عليه أيه تلماميسا بخيل نمو لقما أقونين أسقنا ما أقونين صلوات لقما الشيء قال يا مسلم تونا كمين الشيء بل آد بوقع عن فرنا سيئان لقى الشيكين كرينين وتصور كبني آدم كوردن بك بحسن أيه النبي قد يقسئها صلوات ربي والسلام عليه وحلقة ذي تضباد إلى أنه كأكل من حلقة السديدات سدا إيوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.